ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka Jubbaland howlgalla ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah guryaha ku yaala magaalada Kismaayo ayaa waxay ku soo qabqabteen maandooriyaal isugu jira qamri iyo xashiisho ku jira caagado iyo quraarado. goobta lagu soo bandhigay maandooriyaashan ay soo qabteen ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka Jubbaland ayaa waxa warbaahinta kula hadlay qaabka ay ciidamada ugu suurta gashay in howlgalkan ay ku guuleystaan Axmed Muuse Xirsi madaxa laanta nabad sugidda iyo sirdoonka Jubbaland isla mar ahaantaana gula dardaarmay waalidiinta dhalay caruurta ku nool magaalada Kismaayo inay ka ilaashadaan isticmaalka qamriga iyo xashiishada caruurtooda. Bismillahirrahmanirrahim. maanta ay taariikhdu tahay 24 bishii 2018 waxa ciidamada nabad sugidda Jubbaland ay howlgal ku soo qabteen daroogo isugu jirta xashiish iyo qamri. daroogadaas oo ka kooban 12 jirigaan oo xashiish ah iyo 15 dhalo oo yar yar oo khamriya iyo 10 dhalo oo waaweyn oo khamri ah marka la isku darana ay tiradoodu dhan tahay 25 dhalo oo khamri ah. maanta oo ay taariikhdu tahay 20 bisha 4 2018 waxaanu gubi doonaa daroogadaas oo laga soo qabtay guri qufulan oo ku yaala magaalada Kismaayo dhexdeeda lana waayay cidii markaa iska lahayd. waxaan maanta ku dhex gubi doonaa xarunta nabad sugidda Jubbaland ee Fiyaad waxaana ka howlgalay oo daroogadaas soo qabtay hay'adda nabad sugidda Jubbaland. way jiraan cid dabagal lagu hayo laakiin ilaa iyo hadda ma hayno gurigii cid ku soo noqotay. waxaan ugu baaqayaa shacabka reer Jubbaland ee soo gelinaya daroogada Jubbaland in ay ku baabi'in doonaan daroogadaas caruurtooda kala duwan gabdho iyo wiilalba taas oo macnaheedu ay tahay sanada ina soo dhaafay oo hore oo beera xashiisha lagu wareejiyay wadanka China kuwaas oo ay ku baabi'een dadkii dalkaas deganaa. haddaba waxaan dadweynaha reer Jubbaland ka codsanayaa in ay caruurtooda ka ilaashadaan daroogada iyo khamriga magaalada inta la soo geliyo ilmahooda aysan ka warqabin ilmahoodana in ay geystaan dugsiyada Qur'aanka Kariimka ah iyo iskuulaadka si ay uga badbaadaan waxyaabaha maandooriyayaasha ah. haddii kale waxay ku soo noqon doontaa iyaga laftigooda waalidiinta caruurtaas dhalay iyo dhammaan shacabka reer Jubbaland. markii ay soo ilaatay bandhiga qamrigan ay ciidamadu soo qabteen waxa goobta lagu gubay xashiishadii ku jiray caagadaha iyo dhalooyinka. Axmed Meerkuri, Jubba Video Channel, magaalada Kismaayo.